dowladaba aad iyo aad baad runtii u mahadsantihiin. waxaan doonayaa inaan waxoogaa ka hadlo diiwaangelinta sida uga socoto Gabiley. labadaa qodob baan rabaa inaan ka hadlo insha Allah tacaala. 11 bishii 10aad ayaanu wadanka ka baxnay anagoo sii marnay wadanka Kenya oo halka runtii shirar kula yeelnay qurba joogta iyo dadkeena reer Soomaaliland halka jooga. inta kadib waxaan u gudubnay oo boqolay wadanka Finland magaaladiisa magaalada madaxda labaad ee Turku ayaanu seminar muddo 8 casho soconayay oo runtii aad iyo aad muhiim ugu ahaa muxuu ahaa shaqada aan haynay iyo adeegga aan umada u haynay inta muhiim weyn ahmiyad weyn u lahaa ayaan runtii halka ku soo qaaday. seminarkaas wuxuu daaranaa ama ku saabsanaa ama aan ka faa'iidnay wuxuu ahaa waa maamul daadajinta intiisa badan iyo dawlad maaragtay maamul wanaaga iyo maamul daadajinta labadaas ayaa muhiimadoodu ay ahayd. waxaan aaminsanahay inaanu safarkaas oo ahaa safar guul oo taariikhi ah oo maayaro inta leeg ay ku tagaan dalka dibadiisa iyagoo tababar u baxay. degmooyinka ay ka socdaan runtii warbixino ka dhiibay nin walba baahida degmadiisa iyo cidda uu matalaya uu sheegay. saasoo ay tahay waxaan oran karaa safarkaas aan ku tagnay magaalada Turku aad iyo aad buu muhiimad noogu lahaa. dhinac kale markaad ka eegto safiiraan waxaan iibinaynay calankaas iyo muxuu ahaa qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo cid kasta oo la kulmayno uga sheekeynay Soomaaliland iyo waxay qabsatay iyo halkay taagan tahay iyo waxay dunida ka doonayso. aadna dadku runtii way noo dhageysanayaan oo way nadaneynayaan. markii uu noo dhamaaday aad iyo aad waxaan markaa ugu mahad celinaynaa xildhibaanad reer Soomaaliland ee kamid ah golaha deegaanka Turku Hooda Cabdilaahi Xasan oo runtii iyadu lahayd inay halkan keento markii hore maayirka Turku ee dalka Finland halkan noogu yimi isla markaana markuu arkay horumarka iyo waxa wadankeena ka socday degmo kasta uu booqday wuxuu go'aan ku gaaray isaguna inuu casuumo maayirada dalka si ay aqoon uga soo kororsadaan. taasi waxay keentay markaa inay roodi kuntato oo aanu anaguna tagno muxuu ahaa wadanka Finland gaar ahaan magaalada uu maayirka yahay ee Turku. waxaa kaloo mahad celinayaa Master Sebo oo ah maayirka Turku oo nin aad u fiican oo Soomaaliland garanaya oo maaragtay Soomaaliland yimi oo aqoon buuxda ka haysta. aad iyo aad baan isagana ugu mahad celinaynaa dhammaan jaaliyadda markaa reer Finland meel kasta ay joogaan hadday tahay Helsinki jaaliyadda qiimaha leh reer Soomaaliland ugu soo dhaweysay hadday tahay Turku oo ay roodi hogaaminaysay hadday tahay Netherland oo aanu si gaar ah u tagay magaalada muxuu ahaa Rotterdam iyo magaalada Dordrecht la yiraahdo iyo Hartenberg oo aan kula kulmay maayirka magaaladaasi. iyadana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadkii reer Netherland ee ugu horeeyay Maxamed Yuusuf Buux gudoomiyaha jaaliyadda oo si fiican oo qiimo leh ii soo dhaweeyay. Ismaaciil boodbood oo isna muxuu ahaa horkacay jaaliyadda reer Hartenberg oo isna halkaa igu soo dhaweeyay. runtii waxaan kala hadlayay bay ahayd maayirka aan kulanay degmadiisaasi ama magaalada uu maayirka ka yahay oo runtii kaabayaasha dhaqaale amba infrastructure-ka wax loo yaqaano ka hormartay oo magaalo 200 sano in ka badan jirtay oo qadiimi ah. wuxuu naga ballan qaaday markaa inaanu maaragtay inuu iman doono Somaliland gaar ahaan Gabiley uu soo booqan doono isagoon Afrika inteeda kale weligii arag. sharaf weyn oo ah inuu imanayo insha Allah tacaala oo guddi farsamo aan u saarnay oo hawsha muxuu ahaa ogaata la socota isagana soo kaxaysa. waxaan u gudbiyay 5-year plan-ka qorshaha magaalada degmada Gabiley oo buug qoran ah oo neediskeyguna ay ku qoran yihiin wixii aanu qabsanay ku qoran yahay baahiyaadkeyguna dabcan ay ku dheeyeen. buugina uu qaatay waxaan u ballan qaaday insha Allah inay wixii suuragal ah hadday tahay maciidaadka qalabka wadooyinka town plan-ka wixii ay ka qaban karayaan inay ka qabanayaan buu noo sheegay. sidaas leeg maayirka Turku isagana waxaan u dhiibay buugga kulamida oo ay baahiyaadkeenu ku dheeyeen hadday tahay wadooyinka isku xidhka muxuu ahaa hadday tahay bridge-ka muxuu ahaa arabsiyo hadday tahay wax kale oo fara badan hadday tahay wadada hadda socota ee maaragtay qorshaheedu socday alle baday intaba waan ka wada hadalay buuggaana isagana waan u dhiibay. waxaan dib ugu noqday anigu mar dambe haddana Helsinki
Finland waxaan kulamo la yeeshay markaa dad kala duwan oo madaxa waxaa ka mid ahaa markaa gudoomiyaha garabka bidixda maaragtay golaha deegaanka ee xisbiga garabka bidixda ee Finland gabadhaas oo runtii aad iyo aad ii soo dhaweysay isla markaana waxaa chance u helay inaan ka qayb galo kulankii golaha deegaanka ee degmada ama Helsinki caasimadda Finland oo ka doodaya qaabkay u doodaan qaabkay wax u ansixiyaan qaabkay shuruucda u dejiyaan qaabka ay u maamulaan shaqo maalmoodkooda iyo waxa ummaddu u dooratay baan runtii iyadana ka qayb galay anigu shakhsiyan maayer ahaan gible ahaan dood fiican baa runtii ka dhacaysay siday uga doodayaan ajendayaasha lasoo hordhigo intoo dhanba runtii warbixin fiican ayaan ka soo qaadanay si fiicanna waan ugu warramay Somaliland iyo waxay tahay gaar ahaana Gibiley oo dhul wax soo saar dhul beereed oo hodan ku ah ilaahay ku manaystay baan uga warramay halka iyada gabadhaas iyadna waxay ballan qaaday insha Allah inay mar horena Somaliland timi insha Allah waqtiyada soo socdana ay iman doonto waxaan uga jeednay markaa bal inaan ogaano bal u kuur gallo xaaladaha ay ku nool yihiin ama yani ay wax ku maamulaan waxa xusid mudan oo aad iyo aad sharaf u ah marka in aan dhageysanaynay doodoodii isla markaana ay mikrofoonada ka sheegeen in aan la joogo halkaas ay sheegeen oo ay baahiyeen waxa kale oo jirtay iyadna Allahumma salli ala Muhammad iyaga qorshayaashoodu inaga miisaaniyaddeena waa 1 sano iyagana waa 5 sano intaasaynu kula duwan 5 sano bay iyagu ansixiyaan 5taas sano kadib bay haddana 5 sano oo kale ansixiyaan marka inaga teenu waa odors waa waxa ma la heli karaya ama ay soo wada baxaysa ama dhinmaysa laakiin iyagu waxay og yihiin weeyaan oo wax u tirsan haddii cashuurta waxay ku noolyihiin waa cashuur arinta ugu muhiimsan ee wax ka helaano waa dhaqaale kalena ma laha meel kale wax ka helaana ma jirto waxna ma dhoofiyaan dadkooda ay cashuurta ka qaadaan qof kasta oo shaqaysanaya koob shaah hadaad cabayso koob sharaaba hadaad meel ka dalbato hadaad shaad ka iibsato meel intaba cashuurta dawladdu way saaranta wax ku qoran way wadan wuxuu wax ku gaadhaana waa cashuur astaanta muwaadinkuna waa cashuur bixinta wadankuna cashuur buu ku dhismaa waxa markaa laga faa'iideysanaya halka in qof shaqeeya oo bareefad u shaqeeya iyo qof qaranka u shaqeeyaaba lacagta uu ka qaato oo cashuur ka bixiyo intaas bay ku hormareen shuruucdana way dhiseen in sharciga la ilaaliyana way askari police arkimis cid ku hor joogta arkimis waxaad arkaysaa deedna waxay ku heshiiyeen oo dariiqyada ku yaalo meelaha ku qoran qashinka oo kale sida u maareynayaan qashinka way ka faa'iideystaan qashinkan inaga inoo wareeriyay tamar baa laga dhaliyaa weliba qayb kalena Suudaan baa loo dhoofiyay waan la kaftama waxaan ku yiri qashinkan inaga wareeriyay ma naga iibstaan marka bal kan qashina insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxa laga yaabaa in Ilaahay faraj khayr qabo mar hadii bahalkii la iibsanayo in bahalkan imika la isku maaragtay dhaleecaynay qashin bahalkan yaala la leeyahay in waliba uu oran doono qashin baan hayay iga iibsada Ilaahay inuu ina gaarsiiyo mustaqbalkana waan ka baryanaayo ay taas oo kale aynu gaarno in qashinka ka faa'iideysana hadii Ilaahay yiraahdo waxaan la kulmay gabadha u qaabilsan macaawinooyinka dibadda ee dalka Finland شارع بدنا runtii Somaliland ka hirgelisa oo kan dhalayd iyo maalgeliye iyo hay'ad kale halkan la jooga runtii gabadhii heerka xafiiska haysatay dawladda Finland wakiilka uga ahayd ban la kulmay waxay sheegtay muddo hore in Gibiley wada shaqayn lahaayeen laakiin muddada intii ka dambeysay ay runtii ay kala maartay joogsadeen ay wada shaqayntahay meesha ka baxday waxaan ballan qaaday markaa in wixii dhankayga ku xidhan aan insha Allah kala shaqayn doono oo xagga iyaga ah wixii xaggoodana ay soo celiyaan waxay sukaaya xidhay marka kulay oo xafiiskoodii gabadhii xagan joogtay si aan u wada shaqeyno halkaana inaan wada shaqeyntii mashaariic ay fulin jireen inay dib u wada bilowno taana waan ka wada hadalay meel fiican runtii waan isla gaarnay dabcan waxaan la kulmay jaaliyadda reer Somaliland ama reer Gibiley aan iraahdo guud ahaan reer Somaliland mar gaar ahaan reer Gibiley oo aan uga warramay baahiyaadka ka jira gobolkeena iyo waxyaabaha loo baahan yahay in laga qabto si gacmahooda jir bay wax ku gooyaan in walba halku jooga soo guntado maanta horumarka loo jeesto runtii waanay aqbaleen dad aad u heelan weey dad jecel weeyaan horumarka wadanka iyo faa'iidada maaragtay dad garanaya weey wanaaga wadankeenu leeyahay wanaaga wadankeenu leeyahay maanta inaga inoo qiimeysna dibad bay inoo qiimeysan dhaxan iyo baraf iyo balaa yaalaan laakiin waxa wadankeenu leeyahay iyagu way garanayaan inaga laakiin cid garanaysa way noogu yartay runtii waxay jecel yihiin inay wadanka yimaadaan waxay jecel yihiin wadanka maal gashadaan way qof waliba asalkiisu ku noqdaa kullu shay yarjicu ila aslihi baa leeyahay
shay kastaaba originaligiisii unbuu ku noqdaa marka dambe ma faraxti gelisa dadka qurbaha inaga jooga ee fiican ee qalbiga fiican leh waxyaabaha qaarkood ee meelaha ka akhriyaan dacaayadaha aynu isku marino warbaahintana ma jecla waxaan soo jeedin lahaa marka warka inta fiican in loo sii daayo inta horumarka waddanka leh inta aan cunfiga lahayn inta aan caydi ku jirin inta wax taraysa mararka qaar waxay sameeyaan meelaha qaarkood ma daawadaan runtii iyagoo diidaya waxyaabaha la is odhanayo somaliland oo mid ayay ku doodaan iyagu somaliland oo mid ah oo hal qof isku hal qoysa oo hal dal ah ayay kula doodaan ummadaha kale la joogaan markay arkaan markaa iyadoo somaliland muxuu ahaa hadday axsaxaab tahay iyo hadday siyaasiyiin muxuu ahaa fadhi ku dirira tahayba in la isku jawaabay markay arkaan runtii aad bay u naxaan oo waxay wadnahay farta ku hayaan waan soo sheegnay inaanay wax balaayo ah oo somaliland usoo socota inaanay jirin somaliland waddan mucjisa ah oo ilaahay ilaashanaya inuu yahay waanu sheegnay oo waxaan ay ka warwarayaanba aanu jirin runtii kolley yoonyoonta kan iyo xana maaragtay dee laga waantoobo markaa bal waxay ku farxaan waxay ugu jecel yihiin marka roob baa waddankii ka daaya leedha ee sawir la geliyo roobkii u daaya nimcadii oo socota waxay jecel yihiin waddaa la furay waxay jecel yihiin horumar baa socda waxay jecel yihiin ummaddii reer somaliland baa wada socota intay jecel yihiin runtii waa intaa marka waxaan odhan lahaa un wixii gudaheenna ah ee jira ee la isku sheegi karayo ee la isku tilmaami karayo dayaan saxaafadda la isku marin wixii maaragtay laysla dee in laysla taabto oo laysla toosiye wey adigoo markaa wax sheegi kara oo hebelo waxaa ka daawadhan karaa haddaad meel u mariso xaasid baad noqonaysa oo wax babligoo dunidoo dhan daawanaysa haddaad u mariso qofka adoo adigu u sheegi karaya xaasid baad noqonaysa marka xaasidkuna da waa laynoo sheegay oo laa yaflax qofku hadduu xaasid yahay ama horumarka ka xumaado ama qof naco ama ilaahay muxuu waxaan qofkan u sii yidhaahdo qofkaas weligii guul ma gaadho weligii intuu adduunyada ku noolaya shaarmadoob ahaanaya waxaan markaa runtii kaga soo ambabaxnay nabadgelyo fiican iyo maaragtay inaanu arrinta ugu weynan ka soo faa'iidnay sanadka doorkan aanu tagnay haddii doorkii hore aanu wax ka sheegayno doorkan waxaanu ka soo faa'iidnay waxa ugu weyn waa aqoon waxaa la faa'iidina aqoon baa ugu wanaagsan aqoon iyo inay inoo imanayaan iyo inay waxay inaga tari karayaan inaga taraan 6da subaxnimo 7da subaxnimo inta la kacaba 9ka lagu noqonayay maaragtay iyadoo marka waxaan soo jeedin lahaa waxa inta badan barnaamijno waxa ahaa decentralization policy-ga ama madaadijinta caafimaadka de kulli wada ogtiino kama marnin waxbarashada wax kasto ay tahayba dawladaha hoose gacantii marka horeba ku hayeen saas ay tahay awgeedun bay tahay in loo daadajiyo iyaga lagu wareejiyo inta ka hadlayeen taas u baxeed dhammaan hay'adaha dawliga ah ee degmooyinka dalkaanu tagnay ka hawlgalana dhammaantood waxa maamusha degmada xataa dekedaha biyaha leydhka muxuu ahaa caafimaadka iskuullada kale iyo waxbarashada intaba degmadaha hoose maamula marka annagana waa imika weynagan gaarnay golaha wasiiradu ansixiyeen awalba dee annagu capacity-geeda lahayn oo iskuullada dhisanay oo wax walba qabananay haddana inay waxoogaa ay ahaato uun centralized way adkaanaysaa hawsha kulli hawsha waxa u fara dhuudhuuban cidda la joogtay mar walba ay deegaankeeda ku taalo ayay aad ugu fara dhuudhuuban waxaan kaga bixi lahaa hadalkayga waan idinku badiyey 2 qodob oo muhiim ah mid waa tawacyigelinta diiwaangelinta arrinta maanta gabiri taala waxa weeyaan waa arrinta diiwaangelinta ee magaalada ka socota waxaad moodaa in dacaayado badan la faafiyey oo dhalinyartii been loo sheegay cadowgeenu geed kasta oo gaaban iyo geed kasta oo dheer wuxuu u fuulayaa inayna dadkeenu isdiiwaangelin waayo dee waa astaantii muwaadinka 1991 markaynu Soomaaliya ka go'nay ee aftidii dastuurka la qaaday 97% inaynu go'sano waa gabagabayntii weey dagaalka markaa ka socda meelaha kale cadowgeenu wada ee kulba shaar u gashanayo kulba meel naga soo galiyo haddii dhalinyarteena loo geliyo in ay inay yihiin in faraha meel la dhigayo meel kale la dhigayo wax allaaliyax ka jira ma jira maalin aan maanta hayno la garan doona haddii gibilis diiwaangelin weydo baarlamanka soo socda waxa lagu qaybsan doonaa codka gibilis ka diiwaangeliya intuu leegi marka waxa weeyaan ma fiicna ahayda dambe buu ninkii ma fiicna ahayda dambe war hal isdiiwaangeliyo oo gobolada kale halala tartamo oo dadkeena haday dhalinyar tahay iyo haday waayeer tahay haday cid kasta tahayba diiwaangelinta ha galaan oo kaarka madaniga kaarka aqoonsiga qaataan
qofku astaantiisa muwaadinimadu waa kaarka inuu qaato weeyaan haddii kaloo la yidhaahdo faraa la dhigaya maxay baa la dhigaya meel la tegi maysi gobolkaaga iyo degmadaadiina waa tiradoodii baad galaysa waxa maanta somaliland isugu faanaysaa waxa weye waa populationka gobolba gobolka populationka badayay khayraadka lagu qaybsan doonaa oo xildhibaanada lagu qaybsan doonaa oo wax kastaa lagu qaybsan doonaa marka ay heer qaran noqoto laakiin marka la yidhaahdo dhalinyartii gabilay farihiina la dhigayaa meel oo diiwaangelintii tashwiish la geliyo alla wax inoo hagaagaya ma jira diiwaangelin hore aynu soo galnay waxaynu soo galnay registrationkii hore ee doorashada lagu galay berigii hore taaba waa la lahaa faraha meel la geynaya dacaayad bay noqoto been bay noqoto wax beena weeye tan maanta aynu taaganahayna waa tii gobolkeenu ku noqonayay ama gobol madax bannaan oo tiradiisu ay isku filan tahay oo waxa weeye dee lagu xisaabtamo oo tiradagu baarlamanka tiro xubnaha ka hela ama waa tii la odhan lahaa dee been bay noo sheegayeen oo way ku celcelinayeen maanta waxaan leenahay marka waxaa la yidhi inanta marka maa soomaaliyeed waxay marka lasoo gurigii lagu soo hoynayay ma xasuusta iminka waan kala ilaawey waxaa loo suraa guriga xeerka meesha la yidhaahda ee ama xadhkaha lagu xidho waxaa loo suraa boor wax la yidhaahdo xoolaha lagu isticmaalo looda lagaga gudliyo haddii arrintaa lagu guulaystana boortaa waa laga furaa guriga haddii lagu guulaysan waayana weligeed waa sugnaata reer gabile waxaan le maanta boor baa gadaanka idin suran wallaahi boor baa gadaanka idin suran haddii codkaa aad maanta diiwaangelinta aad ku dagaalantaan ood isdiiwaangelisaan oo tiradiina muujisaana way laalmaysaa xildhibaano badan iyo marka qaranku wax qaybsanaya saamin badan baad heli doontaan haddii kalena boortaasi way sugnaanaysaa hadde marka haddee boortaa ay naga furaan laya horta reer gabile taasi waa taa waxaa iska timaada uun dadku inay cambaareeyaan oo meelaha qaar dee laga hadlo aan runtii cidna u jawaab maayo waayo marka ay noqoto dhaliil maamulka ka jirta ama systemka iyaga oo ka khaldan yihiin in la noo sheega diyaar baanu nahay dhaliila in la noo sheego weliba waxaanu ka jecelahay wax walba inta la noo yimaado in la yidhaahdo waxaasi u qaldan yahay ka daaya hada waxa weeyaan taasi waa nasiixo oo waa wax sheegaya waana fiican wey waana wax loo wada joogay ee xildhibaanada loo wada yahay ee dalka loo wada leeyahay wax la isku leeyahayna waa taa hadday noqoto inaan halkaa ka hadlo waxaan doona idhaahdo adhi jirta yaa garan ninkii adhi soo egay baa garanaya oho baa la yidhaha halkaa inta saa la yidhahda oho la isku caayi jira dee waxaan socdaa oho buu eegi tayaree ahay waxaasaa la isku caayi jira marka hadda yaani oho inaga noqonayn sidii adhi jirtay waxaa la tilmaamayaa wax dhaba oo jira ha noqdo arrimaha kale kulleyda anigu bil iyo sayd baan maqnaa xafiiska maantaan kulle yimi oo shaqada soo galay wixii qaladaad ee xafiiskayga ka jira ee hadday cabashi jirto deg deg baan u saxaynaayo dee waxbaan ka qabanaynaa kulle insha allahuna muxuu ahaa wax xumaan doonaa kulley ma jiraan waxqabadka dee waxqabadku qofka xaasidkaa uu dhibaa qofka hadduu xaasid yahay ku dhibaya waxbaa la qabtay waxa la qabtay waa in la sheega waxa dhimanna waa in la tilmaamo dabcan dowladdu wixii ugu badnaabay qabatay inta ay joogto waxaan odhan karnaa oo dadkuna og yihiin oo wax la dafiri karaan ahayn somaliland dowlad soo marta oo dowladda maanta jirta ka wax qabad badani dee may jirin haddii runul doonaya wey ma jirtaan leenahay taas laakiin maanta gadh ilaa gadh waxqabadka socdaa waxaan odhan lahaa kusoo gebagabayn lahaa keliya hala bal waxa dhiman hala sheego dadkan kale meelaan dadka ka wareerinayaana dadka hadday waxu qabanayaan dee ha sheegaan inaan ummadda irbad dun u gelini baa doonaya inuu kaambeyn ku gala been oo qalinkaasi u yaraya aan waddanka qalinkaa keenin ayaa rabaa in uu haddana maanta been ku kaambeyn garaysto oo ummadda been u sheego oo waxaan jirin ka dhaadhicay war waddankan dhib baa loo soo maray nabadgelyada markay noqoto waxa loo soo maray somaliland waa loogiya waxaynu dhib inoo soo maray iyo waxa aynu u soo galayna waa loogiya waxaa la ogaya magaalooyinkaynu maanta ku noolahay quruxda badan leh laamiyada leh inay dekan deka noqdeen oo cagta la mariyey baa la ogaya cadowgii shalay cagta mariyey ee baabiiyey magaalooyinkeenna ee maaragtay siduu doono yeelay ninka maanta intuu tv soo fadhiistay idhahda siiraanya waxa ka wanaagsanaa siyaad baray
horta in maxkamad la saaray ahayd maxkamad in la saaray ahayd ka oo waxaan ummadan lagu sameeyey dad aan maqli karin baa jira hadday noqoto xeebta jasiira wixii ka dhacay hadday noqoto shacbigii reer Soomaaliland inta xadhkaha lagu xidhay gebigoodaba la xasuuqay dadkii ka dagaalamay ee ka dhiidhiyay iyagoo madax sare wadanka ka baxay ummadooda raacay maanta wadanka xukuma madaxweyne ka in waxa lagu hadlana waa arrin nasiib darro ah weey waxaan oran lahaa marka kulli beeraley baynu nahay oo dadku waxay dad beer oo xoolo dhaqata oo dhul aan guurguurin oo gabile la yiraahdo baynu nahay gabilina waxaan u sheegay cid kasta oo ku riyoona sayaxbaa ku riyoon gabili dawladda iyada dhistay haddii halgankii tahay ayay haddii dhismaha xisbiga kulmiye tahay bay gabiliga ka soo baxay waxaan oran lahaa marka war sididaada mooyaan dhul dhacaaga hubso ninkii wax kala sheegay dhul dhacaaga hubso maxaa kaga baxaya nin beer qotay oo shaqaystay oo aad iyo aad u tabcaday oo laba dibina ku ag xidhay oo shimbirta beertiisii ka celinaya iyo waxyaabaha guranaya ee doofaarka iyo xalamada ay gabadha saawatagii soo martay oo ila aqtamaysa markaas ku tiri hay xaaj bal warham iyadoo doonaysa inay shukaansi iyo hasaawo bilowdo ninka beerta shimbirta ka ceshanaya in chance badan lahayn idna wuxuu ku yiri bal warham markay ku tiri warham baa wuxuu ku yiri gabadh yahay warkaygu waxaana beertaasi ku sheegin kuma sheegin buu beerta la sheekayso say u baxday iyo quruxdeeda macni anaa ka shaqeeyo meesha waxba qadaran waxa way beertan sidaan uga shaqeeyay uun eeg sheeko kale oo geli karaya ma jirto ku waxaan uga jeedaa uun wax qabadka wadanka yaala iyo waxa la qabtay iyo halkay wax marayaan muxuu ahaa waxaanay u sheegin loo sheegmay waxaan intaasi sheegin cidna loo sheegmay hadday dibad tahay hadday guda tahay ba Soomaaliland waxa horumar ka bilaabmay wax ka socday waa loogi dawladda shalayna waan ku jiray dadaan tiina ku jirin tan ku jirin ba been iska sheegay hadlay annaga ka warbixin kara tii shalayna kamid baanu hayna wasiir baanu ka ahay tan maanta waan ku jiray waxa isbedelayna waanu garanayna wadankuna waa wadankii dunidu may soo caawin wax lama keenin isagu ba dhaqaalihiisa la habeeyay oo dad gacmo aamina loo dhiibay oo la hagaajiyay waxaan ku soo gabagabeynayaa horumarka loo jeesto mucaaradnimadeenu ha noqoto tu wax dhista tu wax dimisay aanay ahaan ninka doonay maanta inay Soomaaliland dunto ka jecel kursi jacayl awgeed doonay inay Soomaaliland xagga u qalibanto war ilaahayna uu ilaashanaya dadka reer Soomaaliland nabadda jecel iyagu wax dhistana way ilaashanaya Soomaaliland ma sidoo ku baabaaysan ma dadkii u soo halgamay baa maanta jooga oo nool oo ilaahay ku simay oo madax ka ah oo qaar muxuu ahaa halkan joogaan naafadii salan baa joogta cid kasta wadankan uu soo halgantay baa joogta iyagaan yeelayno waxa weeyaan midhoodii maanta anaguna dadkii waxaanu ahayn halganka ku dhashay ee wadanka loo xoreeyay ee maanta Soomaaliland mooyaan wax kala garanay intaas aan runtii kaga baxayaa wixii dhaliilay jiray maadaama oo bil iyo samti ka maqnaa magaalada wixii dhaliilay maamulka ay ka jirana waan saxinaa waan isla xisaabtamaynaa khayr baan ku dhamaanaysaa waxaan u sheegi lahaa arinta qashinka ee magaalada waxaynu lahaan jirnay maalmo qashin oo aynu qashinka iska ururno horta inaga waxaynu qabsano mooyaane cidna wax baynu ma qaban karto midna ogaada waxaynu inagu qabsano mooyaane cid wax inoo qaban karaysa iyo cid baahideena fulin karto oo waxa weeye haddaan shacbiga isku tiirsanin oo xaafadu raba qashinka inta iska maaraysa aan goobta loogu talagalay geenin wallahi waxaanu weynay software meel aan ku tuuron maarta markiiba de sharciga la gula tiigsanay inagana qofku markuu caagad sharaab ka cabo suuqa ku tuuray bal marka anaguna waanu dadaal wixii karaankayaga waxaanu sameyn barin meel lagu riday xaanu sameyn xaafaduhuna hadda dadaalaan oo qashinka ay guryahooda ka maxaynayaan inta meel ku xaftiyaan bacyo wax noocaas oo kala bal gaadiidka qashinka hasaara maalinta khamiista soo socota insha Allah hadii la haydo waxaan iclaaminaynaa inuu jiro magaalada olole nadaafadeed oo aynu ka fulin doono haday tahay dawladda haday tahay dadka shacabka haday tahay wariyaasha cid kasto ay tahay waxaan u fadhinaa in maalinta khamiis soo socota aynu olole nadaafadeed gallo idinkuna wariyayaan idinkoo aad u mahadsan runtii kaalin muhiim ah kule muxuu ahaa horumarka wadanka aan rajeynayo inaad kaalin fiican ka qaadan doontaan hadii Ilaahay dhaa waxaan idinka filayaa inaad wararka gobolka ee muxuu ahaa haday horumar tahay haday dhaliili jirtana toosinteeda
laakiin cayda iyo isaflagaadaynta iyo waxa meelaha laga shubayeen sal yar haatoon lahayn waa inaad inaga daysaan weeye oo aad inta aad muxuu ahaa weriyaha ay inoo dheeraato wadaniyadu ay nagu jirto oo aad wadankaaga wadan qabto degmadaada wadan qabto wixii nin caytamaya ku hadlo aad adigu serverka mariso oo tiraahdo nin waxay malaha ummadda uma fiicna waana arrin sadaqa ah weeye intaasaan kusoo gabagabayn lahaa wixii aad su-aalaha haysaana diyaar baan u ahay asalaamu calaykum.